mid hadda kooraan ugu yimid hawlkan aan uga hadlay waxaan aad dareemayaa in hadal badan la iga rabo anagu siyaasiyiin baan nahay waa hadli karnaa waqti badan waxaan la sugayaa wixii hadal ah munaasabada xafladda rasmiga ah waxaan rabaa halkaan laba shay aan ka sheego ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barayaa marka hore wadankeennii abaar baa ka jirta abaar aad iyo aad u xoog badan baa ka jirta gobolladii Soomaaliya ugu roonaan jiray ayaa maanta abaarta ugu daran Jubbaland aad bay uga muuqataa gobolka awdal la yiraahdo Sanaag Karkaar gobollo fara badan oo Soomaaliya ah oo bay iyo Bakool iyo Galbehaar iyo meelo badan bale gobolka Gedo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala isaga ugu filan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasiyo rahmadiisa isaga ayaa ugu filan ilaahay rahmadiisa hana siiyo ilaahay rahmadiisa hana siiyo ما أها كلية أنه أنا سياسات كهذا waxa qofka musharaxa loo dooranaya waxa weeye ummadda danteeda annagu dad islaam aan nahay ilaahay baan naqaanaa subxaanahu wa ta'aala ummadda Soomaalida waa isku calool ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala ilaahay inuu naga soo gaaro waqti waa gabaabsi oo raxmad dalka oo dhan ku filan ilaahay inuu nasiyo arinta labaad waa dagaalka iyo dhibka iyo cadaawada jirta ummadan Soomaaliyeed waxay u baahan tahay sida uu sheegay ugaasku cid isu keenta cid midaysa cid walaalaysa cid dhaqankoodi u soo celisa cid u boogadayda waxaan qabaa inay maanta muhiim tahay waqti kasta oo ka horeeyay in aynu maanta ka soo baxno 26 sano iyo waliba ka badan oo burbur dhaqan iyo burbur siyaasadeed iyo burbur diin iyo burbur dal iyo burbur dhalinyaro iyo burbur haween isugu jira waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahad celinaynaa dowrka ay ka soo bixin haweenka Soomaaliyeed waa huba Soomaaliya waxay ku badbaaday haweenka anigu waa soo shaqeeyay siyaasadda muddo ku jiray وأقانا ميزانك هوينكنا يكون ليه بداية تبدأ ذلك تدبر ما وحيلية بين كمان الطريقة فردة قاد كجبيسة والله ما تنكر عنو مصروف ده كمان ناس ظروف بهالكان جيسي إلهي سبحانه وتعالى إنه كابال مريو نبض موكينه ولا المكينه قرية يكون ولاته كشف يسته كحوك سته سياسته ومدة كيقي قامته تلذذ ديبته إلهي ما كبر ينا سبحانه وتعالى أنا وحنا من سنة هاي صوماليا وحي مضنتهاي أنت وقاس حيري عمر حيري هي نبضر عبد الله بن هذين أنت هاسي صوماليا مضنتهاي ما أنت وحي مضنتهاي إن الله ترتمه إن ليسقي ماذا إن موقته قبل نمنا أمد الصوماليات إن إلهي ذلك أصاره قفك مستقبل كيسة دين تيسة نبديسة أي كترته إلهي أصو صاره أنا هدار نقدر وبلغ قاضي إن شاء الله قفك لهدون نقدر وحن بلغ قاضي إن الله شقي وكر بيستاذ إلهي بحية حكمك إلهي بحية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أنا قال الله وحرد على الولاد ويوم وحكمك الحمد لله رب العالمين إسلام بعدنا الدين تيجي وكفارنا الحمد لله رب العالمين ذلكنا وحدقي كالعدالة وحدقي كرتوذا جر وحدقي كرتاج متقاعد أودال أنا للما تلا برنا يماهي وما بعنا لقى شواء وصور شقية وصور ترتمي وحان كسوه على ماله بدن بركة قارب وداني جالس نجيسته بركة كذا يا حي والله والله يعني نبغى واحد هذا أبوي يوم حقيقة الله عنه محل ذا اللي قبل دلوه محل كاهوس محلي واجد دويدو عن سياسته كم محي صدق بلون وحكي لك كم شقين محل خدمي محل صحي فكل نقطة ماشي يريدوا أشوف الشقين هاي وصوالة والشقية والماشي عيالكم أيضا وهذا بالسلامات هذا الرجل المحلي والله رفضه ترى Jubbaland sida ugaasku sheegay abaal baa aniga igu leedahay anna abaal baan ku leeyahay aniguna abaal baan ku leeyahay hadda abaalka nin galana waa la arkaa nin gudana waa la arkaa
haddaad abaalkii gudi weydaan haddaba dawlad baan keenay oo anigu sababteeda lahaayo hadda bannaankaan ka taagan waliba xildhibaankeeda xataa waayo marka waa sabri kara waa aqaanaa haddii reer jubbaland abaalkaa ka soo baxaanna waxaa igu markhaati oo ballan ah sidaa rabtaan iyo sidaa jeceshihiin inaad wax badan u heshaan insha allah warkaygu anigu waa intaa wixii ka badan waa oran doonaa iyadiyo meesheeda weeye laba kelimaan ku khatimayaa waxaan ku khatimayaa madaxda qaranka hadda wasiirka federaalka information ka hadlay madaxda qaranka waxaan leeyahay ogaada ilaahay baa bixiya xukunka geedda dhulka hala dhigo ummadda soomaalida ha la isugu yeero cadaalad ha loo horseedo dulmiga ha laga daayo soomaaliya anaa i wata baa meel kasta taalla aniga ummadda soomaaliyeed baa i wadata iyadaan u shaqaynayaa iyadaana u ballan qaadayaa lacag wallaahi baan lagu helay xukunka wallaahi baan lacag lagu helay oo wallaahi baan boob lagu helay oo wallaahi baan fawdo lagu helay ilaahay fadligiisa iyo cadaalad baa lagu helayaa waxaan rajaynayaa in si cadaalada oo qurux leh doorashada u dhacdo maanta doorashadii ka dhacday baarlamaanka waxaan qabaa jubbaland horseed bay ka tahay doorashada soomaaliya ka dhacday intaasoo kale aan ka rabnaa madaxda waktigooda dhammaanaya hadda